degmada Barawe oo kamid ah degmooyinka qadiimiga ah ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya xilligan waxay caasimad u tahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya inkastoo xilligan uusan maamulka ku shaqeyn haddana waxaa ka soconaya dib u dhis lagu sameynayo goobaha ku yaala gudaha magaaladaasi waxaana kamid ah garoonka diyaaradaha degmada Barawe iyadoo maanta diyaarad sida dad rakaab ay ka degtay gudaha degmadaasi wariyaha gobolka Shabeellaha Hoose kaga soo warama telefishinka Universal Cabdiweli Cali online ayaa warkan noo soo diray dhismaha garoonka magaalo xeebeedka Barawe oo soo maray marxalado kala gedisan ayaa iminka maraya heer gabagaba ah waxaana garoonka iminka uu diyaar u yahay in ay soo caga dhigtaan duulimaadyada kala gedisan waxaana si nabad ah maanta u soo caga dhigatay diyaaradii ugu horeysay mas'uuliyiinta maamulka degmada Barawe iyo xubno ka mid ah maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan Barawe ayaa diyaaradan ku soo dhaweeyay garoonka cusub ee magaalo xeebeedka Barawe waxaana warfidannada goobta kula hadlay Aadan Cumar oo kamid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ee aaga Barawe Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale oo yimid diyaarad garoonka degmada Barawe ku soo degtay garoonkaas oo dhismo ku socotay waxaan maanta farxad iyo guul noo ah diyaaradii ugu horeeyay oo garoonka degmada Barawe ka soo degtay oon ku faraxsanahay ilaahay mahadiis waaye marka waan ku faraxsanahay haddaan nahay Barawe degmada Barawe shacabka iyo dadka nool maamul leh ciidamo leh waa ku faraxsanahay waxaana leenahay garoonkaas waxa ka harsan waxa ka sida injineerada iyo ayna dhaheen qolada oo duulista iyo hawada oo hadda noo timid waxay diyaaradda soo degtay injineerin macnaha hawada iyo duulista iyo garoonku sida uu maaragtay oo dhismihiisu uu yahay oo diyaaradda ugu degi karto waxayna noo sheegeen in diyaaradda uu garoonkaanu furan yahay diyaaradda ugu weynna sida aan ku qiyaaseen ayagu kontonqaad inay kasoo degi karto oo weligeed ba adduunyada la abuuro diyaarad waxaa ka soo degay oo garoon la yahay aad bay noo xaqiiqaysan mas'uuliyiinta dowladda federaalka wala sidii diyaaraddan ku xidhan doonto dadka ku xidhan doonto tii kale haddii ilaahay lahay anaba raac lahay dhamaystirka dhismaha garoonka Barawe ayaa ka dhigan in magaalada ay marti gali karto guud ahaan laamaha kala gedisan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama magaaladu ay tahay caasimadda rasmiga ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose horyaha online ayuu kaasi ahaa markana magaalada